الحمد لله إلها ما حد سكله ومانتا مناسبة تاريخية عن حلك مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية أن كورو جينايو مدحوينها عصب أولا دورتي مدن حسن الشيخ محمود مدن مدحوينه إلهي وحن كاغا بريايا حل كان علوس إنه إلهي يكون فوضيه حل كوا ميرتو 5 سنة كهر هل كان تاجنين aad igu soo wareejisay xog badan ay siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan ay siisay ay koow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo waliba arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo Kenya nagala dhaxeeyay maantana waxaan kugu wareejiyay sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray 5 sano la soo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geynay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan markii ugu horeysa waxaan rajeynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajeynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argixisada ee dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyay sida adigu aad igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyay in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid oo aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhamaatay sanadkii la soo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guuleysanay waxa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa haday tahay dhismo iyo haday tahay dhulba inaba hayraatay sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyay in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyay sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysanaa sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arinta Somaliland waxay ahayd qadiyadda Somaliland waxay ahayd iyo arinta Somaliland wax soo jiitamayay oo madaxweynihii ka horeeyay aad ka dhaxashay adigana aan ka dhaxlay iyadana u baahan dhamaystirka midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyay codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno Security Council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadaan u fariisano kursigaas 2025 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tagay ummadda Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo 51 sano ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar kaliya waxa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkana saaran ama arms embargo iyada nafteeda ku jirta arinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn hadee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walba
dhibaato u tahay marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhammaystirto arrinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashaan ku siiyey waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016 adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladdii ugu dambeysay oo insha Allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhamaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan iraahdo waxaan rajaynayaa insha Allah in maxaan ku raahdaa Ilaahay ku fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo 5 sano taageerada ay taageereen ee sida dhow oo Soomaalinimada leh oo waaltinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud aan la shaqeysaan doorashadii way dhamaatay hadda waxa la galayaa waqti shaqada uu hayo madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda Soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynuhu aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan ka ballan qaadayaa inaan garab ku siiyo gacan ku siiyo heer walbaba insha Allahna waxaan ku rajaynaynaa inuu Ilaahay ku fududeeyo bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh madaxweynaha sidoo uu sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyay xilka dukumeentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay waa tartiib ayaan dib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaadaho aan fahmi waayayna dabcan walaalkay waa joogaa dibaan ugula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn oo ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii alla yidhaha inay ku dhammaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waa waxaynahay intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday Soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii alla yidhaaho xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkana u noqdo wixii qadaayaad oo waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yidhaah sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba igu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taalo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof kaligiis iyo laba iyo lagu dhamaystirkeeda lagu qofku mas'uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha kaliya maaha dawladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celinaya madaxweynaha noo aadan ugu mahad celinaya madaxweynaha maasantahay Allah ku dhaw maasantahay
عدكي ولا سعود سوما ayaa goordhow ku wareejinaya calanka jamhuuriyadda madaxweynaha cusub ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud waxaa dadka aad arkaysaan baddaawadayaal madaxweynihii hore ee علم